بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ciwaankeena waxa uu ku aadan yahay hooyada uurka leh iyo cabitaanka biyaha saameyn ma ku leedahay ama faa'iido ma u leedahay. cabida biyo kugu filan waa muhiim xilliga aad uurka leedahay, waxaa siyaado nafaqada uu ilmaha ka helo hooyada. sidoo kale biyo cabida waxa ay muhiim u tahay hooyada iyo ilmaheeda. jirkeena iyo biyaha biyuhu waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan shaqooyin badan oo jirkeena qabto. waxa ay caawiyaan nudayaasha ugu yaryar ee jirka si loo gaarsiiyo nafaqada. waxa ay ka qayb qaataan burburinta cuntada ama shiididda cuntada. sidoo kale jirka waxa ay ka saaraan sunta waliba kaadi ahaan iyo dhidid ahaan iyadoo loo soo saarayo. sidoo kale biyaha waxa ay joogteeyaan ama balance ay ka dhigaan heer kulka jirka bini'aadanka. caadi ahaan hooyada uurka leh waxaa looga baahan yahay in ay cabto maalintii 8 ilaa 10 galaas oo biyo cad ah. hooyada uurka leh maxay ka caawin karaan biyaha cad? biyaha haddii aad subax waliba cabto biyo kugu filan ama maalin walba haddii aad cabto biyo kugu filan, hooyada waxa ay biyaha ka saacidaan in jirka si fiican uu u soo saaro qashinka. sidoo kale hooyada haddii ay lugaha ka bararsan tahay ee biyo badan cabto socod fiicanna sameyso, waxa ay u badan tahay in ay bogsooto. haddii aad ku bogsoon weydo halahaas, waxa aad u baahan tahay in aad la xiriirto dhakhtar, sababtoo ah calaamada bararka inta badan ee lugaha waxaa lagu yaqaanaa eclampsia ama kalaamisada af Soomaaliga waxa lagu yiraahdo. sidoo kale haddii ay fadhiso hooyada caloosha, waxa ay u badan tahay in saxarada ay adag tahay. haddii ay cabto biyo dheeri ah oo cad, waxa fududaan kara in ay hooyada caloosha u jilcado. sidoo kale infekshanka kaadi mareenka waxa aad ugu fiican biyaha. xitaa mararka qaar daawo kale looma qaato oo aan ka ahayn biyo cabida oo kaliya. waxaa laga yaabaa dhakhtarka in uu kugu taliyo in aad cabto biyo cad oo badan si loo soo saaro qashinka infekshanka ee kaadi mareenka. waxaa macquul ah in aad 10 galaas cabi kari weydo ama ay kugu adkaato ama ay kugu badan tahay. adiga waxaa lagaaga baahan yahay in aad fududeysato. tusaale 12 saacba waxa aad haysataa 12 saacadood in aad biyo cabtana waxa ay kugu qaadanaysaa 5 daqiiqo oo kamid ah hal galaas in aad cabto. haddii aad waqti u dhaxaysato biyahana sidoo kale waxaa la yiraahdaa haddii mar cabistooda bilaabo waa inkastoo jirka uu u sii baahdo. maxaa ka dhaxeeyo biyo cabid la'aanta iyo kalaamisada kusoo boodo hooyooyinka xaamilka ah? mar waliba aad dhakhtar tagto waxaa laga hubinayaa sida ay xaaladaadu tahay. inta badan gaar ahaan waxaa laga cabirayaa cadaadiska dhiigga si loo ogaado in uu kacsan yahay ama in uu hoos u dhacsan yahay. labadaas xaaladood oo mid walba khatarteeda leh. waxaa kaloo barar laga fiirinayaa gacmahaaga, lugahaaga iyo wajigaadaba. haddii lagugu arko barar aan caadi ahayn, waxaa cabsi laga qabaa eclampsia ama cudurka kalaamisada. eclampsia waa xaalad lagu arko hooyada uurka leh, waxaana calaamadaheedana waxaa ka mid ah jarees guud ahaan jirka ah iyada oo ay sabab u tahay cadaadiska dhiigga oo sare u kaca. haddii aan laga hortaginna khatar gelin karta hooyada iyo canuga caloosheeda ku jiraba. calaamadaha ugu badan ee lagu garan karo cudurkan eclampsiada waxaa ka mid ah madax xanuun daran, cayil siyaado ah inta aad uurka leedahay, isbuucii in ay kugu siyaado ku dhawaad 1 kiilo oo culays ah, waa cayil xad dhaaf ah, matag, dawaqid iyo calool xanuun. xaaladda haddii ay sii xumaataan hooyada waxaa lagu arkaa murqa xanuun iyo qalal. haddii hooyada ay cabto biyo badan ay rukumato, waxaa yaraada cadaadiska dhiigga inta badan oo qayb ka ah in ay eclampsiada soo degdegto. sidoo kale waxaa jirka ka dhamaada hooyada ay cabto biyo ku filan, waxaa jirka ka dhamaada ama laga sifeeyaa cusbada badan, taasoo ayadana halis ku ah ama keeni karta eclampsiada. waad mahadsantihiin.